joogo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha nala joogo alxamdulillah shukr ayaan meeshan maxaan ka bixinay raashin aan curyaamin iyo dad indoolayaal aan siinay iyo in yar oo kaashay oo sadaqa ahayd ayadana oo ugu darnay marka si fiican baan shaqada noogu dhamaatay wixii gabagabeena kale madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka ayaa dhameystiri doonaan wax kale oo sidaas aan ku sii dareyna ma jirto insha Allah laakiin saan filayo Soomaaliya aan isku gurmano wax kale oo gurmado kale haysan ma jirto meel walba aan joogno isku gurmano baa muhiim dadka yagi way liitaan aad baa loo liitaa abaar xun baa jirta waxyada aan marxaati ka noqonay maxaa waaye webiga Shabeelle oo biyo aan wadin baan marxaati ka noqonay indhahayaga aan ku soo aragnay oo waliba ciid laga qaadahayo ciidan aan awood badan loo haynin haddii annagu baa isku maqan kale oo noo maqan ma jirto inay maamulka kali aan fiirino ma ahaan in aanaka dhaxdayada gudaha isku fiirino oo wixii deegaankayaga aan u qaban karno aan u qabano oo ummadayada iyo wadankayaga waxaan u qaban karnaa oo qaban nin walba meel walba uu joogo dibadda iyo wadanka gudihiisaba maamulka muxuu u baahan yahay garab buu u baahan yahay garab istaag buu u baahan yahay gacan buu u baahan yahay maskax iyo lacag buu u baahan yahay runtii marka laga hadlayo waayo wadankeena 27 sano ayuu baaba yahay oo wax dhaqaale oo meel laga soo galay aan jirin runta waxaan shalay arkay waxaan aad uga xumaado ahaa wabi la baneenayo oo wax qabanayo oo wax uu ku qabanayo aan jirin oo biyihii uu keenana magaalada ku soo budaacayeen waa mid xun oo ummadayada runta wax tarkii iyo wax soo saarkii ee gobolkan uu yeelan lahaa hortaagan maanta markaan fiiriyay shalay maxaan arkay cagafyad meel cidla ay ciid ka qaadahayaan oo wabiga lagu leeyahay waa wabigi Shabeelle ayaa ciid laga qaadaa laakiin hadda ana meeshii wabi kuma arag ciidun baan arkayoon indhahayga saaray waa wax ajaa'ib ah maxaa weeye waa wabiga loo baxsanayo intaas oo maxaa la dhahay wax soo saar lahaa intaas oo degmay intaas oo gobol laga maamulayo oo wax soo saarkiisu aad u badnaa marka maxaan doonayaa insha Allah shacabkaygana anaka gacantayda wax ku qabsano insha Allah gudoomiyaha madaxweynaha ku wareejinaya insha Allah assalaamu calaykum.